maanta waxaan ku sugannahay dal dowladnimadiisii ay riski ku jirto, dal baarlamaankiisii labadii aqal ah uu qeybsan yahay, dal dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii ay qeybsan yihiin, dal maxay ugu dambeeyey oo ahay ciidamadii amnigana hadda ay qeybsan yihiin. meeshaas annagoo joogna dadaallo dheer ka bacdi iyo juhdi badan ka bacdi rajo cusub ayaa hadda soo baxday. taladii waxay ku wareegtay oo lagu wareejiyey bacda shidda wa tacab prime ministerka. dadka soomaalida waxaan rabaa inaan u sheego rajo fiicanaa jirta marka maanta. prime ministerka maxamed xuseen rooble niman aqaano waaye aniga, nin aad iyo aad qalbigiisu nadiif u yahay, nin aad iyo aad go-aan qaadashiisu ay u adag tahay oo wanaag aan ku aqaano waaye. maanta waxaan rabaa marka wixii kala qaybsanaan iyo dhibaataha inay meeshaas ku haraan oo aan prime ministerka aan xooggeenna iyo caqligeenna aan isugu geyno si aan u xaqiijino muddo yaroo kooban. xaaladda dalka uu ku sugan yahay kuma sii sugnaa kara muddo dheer, muddo yaroo kooban in dalku doorasho ay ka dhacdo, hoggaan cusub la doorto, dowlad cusub la doorto, ciddii soomaali oo ilaahay u calfa ha noqoto, nabadna ay ku dhammaato. waddada ugu gaaban ee ugu sahlan iyo juhdiga ugu fiican ee aan ku bixi karnaan waxay tahay inaan prime ministerka iyo xafiiskiisa inaan xoojino oo aan garab istaagno oo aan la shaqeyno. golaha midowda murashaxiintu go-aanay ku gaareen in prime ministerka lala shaqeeyo, waana la shaqeynay, waana la shaqeynaynaa. tallaabooyinka ilaa iyo hadda prime ministerka uu qaaday waa bogaadinaynaa, waa ammaanaynaa, waa ididiile iyo ifafaalo fiican. guddiga xalinta khilaafka ka dhex yimiday ciidamada amniga arrin soo dhoweyn mudan waaye. shirki uu iclaamiyey iyo maalintii iyo taariikhdeedii la fix gareeyey oo la dejiyey waa arrin kaloo ayadana soo dhoweyn mudan. bisha 20keeda in oo la isugu imaanayo shirki oo la wada hadlaayo. tallaabooyinkaas ilaa hadda uu prime ministerku qaaday dhammaantood ididiilaa ka muuqato, rajaa ka muuqato. laakiin dee inaan prime ministerka idhab anta warabuka faqaatilaa inaan dhahno inaa haahunaa qaaciduun ma aha. prime ministerka keligiisa hawshaan waa hawl culus, asaa hoggaanka ah, annagana waa la shaqeynayna hadii ala yirahdo. waxaan rabaa inaan sheego ciidamada amniga ee magaaladan yimiday waa ciidanka qaranka. waxay u taagnaayeen inay dastuurka difaacaan, inay dimuqraadiyadda difaacaan. wixii caalamku diiday oo siyaasiyiintu diideen oo ummadda inta badan ay diideen ayay ayaguna dhinacooda ka diideen ay ku kaalmeeyeen. dhibaato kale iyo dembi ma ay geysan, ammaanay mudan yihiin iyo in la abaal mariyo. waan rajaynaynaa markaa in oo kii maya yiri iyo kaan dhihinba maanta in la isku yimaado, ciidamadeena dib isugu ceshano, cadowgii aan lahayn aan mar kale dib ugu jeesano, horay u soconno. sida xalka fiican oo ku jira waa midaas. sidaas daraaddeed xafiiska prime ministerka iyo hoggaankiisa iyo guddiga mushkiladahaas xalinaya ee 11ka uu magacaabay dhammaan annagu waa la shaqeynay. 24 saac magacaabistooda wixii ka dambeeyey ilaa shalay iyo xalay. haddana waa la shaqeynaynaa, si buuxdaan ula shaqeynaynaa. waxaan rabnaa xal degdega in la gaaro. waxaan u hambalyaynaa muxuu ahay prime ministerka, dadaalkiisaan bogaadinaynaa, juhdiga uu wadaa rajo ka muuqataa. dalkuna maanta rajo fiican uu leeyahay, jiha fiican uu u jeestay. jihadaas fiican uu u jeestaana u wada taagannahay, ayadaan ka shaqeynaynaa.